naftaada cid walba waad ka taqaanaa, haddana ereyada ay dadka kugu yiraahdaan dhaawac ay kuu geystaan waxaad noqotaa sidii dhismo weyn oo dumay oo kale, iyadoo xaqiiqadu ay tahay qofna in uusan nolosha aad nooshahay ama aad soo noolaatay ee ku soo martay ilbiriqsi ka mid ah in uusan noolaanin, garanayninna dareenka ay leedahay. Codka mudan inaad dhegaysatid ee mudan inaad qadarin siisid waa midka gudahaada ka yeeraya ee kuleh ina kici aynu gaarnay meeshaynu doonayno jecelnahay. aamusnaanta waa hubka lagu dagaalamo lagana guulaysta jaahiliinta. Si cilmiyaysan ula dood kana aamus wixii laqwi ah. Sida biyaha u soco, biyuhu markay ku soo hagaagaan meel taag ah ama tuur ah, aayar unbay isaga leexdaan. Sidaa awgeed, haddii aad qof muran badan ku soo hagaagto, hala murmin ee aayar isaga leexo. inaad dhulka ku dhacdaa yacni aad kuftaace maahan, laakiin waxaa ceeb ah inaad ka kici weyda boodhka ama halkii aad ku kuftay. Ogow guuldaradu waa jidhka guusha, iyadaa cilmi laga bartaa, hadhowna lagu dhaafaa tan kale. haddii aad noqotid nin ama gabadh caan ah oo dadka wada yaqaano, ogow waxa aad sidaa magac, ilaali sharaftiisa, ahawna mid lagu daydo. inaad hesho manfac ama maal waxaa ka wacan inaad hesho sharaf, waayo maalku waa uu dhammaadaa, laakiin sharaftu ma dhammaato. ha ku doorsan maal wax sharaftaada waxyeeleynaya, islaamnimadaada dilaya, dhaawacaya dadkaaga iyo dalkaaga. dhib walba oo ku haleela, ogow inuu yahay dhacdo aad ku baratay dheesha adduunka, kuuna sahlaysa inaad noqoto caalim ku takhasusay nolosha, waxna ka yaqaana. ogow fulaygu marka ay dhibi ku timaado waxa uu helaa xalal kala duwan, laakiin waxa uu qaataa hal mid, kaasi oo ah inuu cararo oo keliya. ku kalsoonow naftaada oo aamin awooddaada, adkaysina lahaaw. aqoonta waa iftiinka nolosha, lagamana weynaado. mar kasta wax baro, waxna bar naftaada, waayo waa furaha guusha noloshaada. qofka xoogga weyni ma ahan kan dadka markiiba lagda, laakiin waa kan qabta naftiisa marka ay carooto. isdeji oo dulqaad u yeela arrimaha nolosha oo ha degdegin. shimbir walba waxa ay soo kala hadaa iyadoo boggeedu laalan yahay, yacnii gaajaysan oo aan cunto meedna ku ogayn, waxayna carowdaa iyadoo dheragsan, waayo waxay tala saarataa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa. ficil samey, allah taladaada u dhiibo, waayo allah marnaba kuma hoojinayo haddiiba aad dadaal la timaado. geedka gobka ah dadka waa ay shiidaan, isna miro macaan ayuu u soo daadiyaa. ahaw qof gob ah, yacnii fiican, iska cafi qofkii ku xumeeya, oo adigu wanaaji siduu uu xadiisku ahaa, xumaha wanaag ku gud, sidaas ayuu khayrku ku jiraaye. salaadaha oog oo ku ilaali wakhtigooda, sakada bixi, soonkana oog, dadkana wanaag kula dhaqan, waxaad gaadhi doontaa idanka alleh liibaanta iyo guusha dhabta ah.